man laa yashkuru nnaas laa yashkuru allah. qofka aan dadka uga mahadcelin wanaagga, garab istaag iyo dhiirigelinta ay u sameeyaan, allana uma mahadceliyo qofkaas. assalaamu calaykum. waxaan ahay qaasim maxamed. maanta maxaad iga filanaysaa inaan kula wadaagi doono? maanta waa maalin xusid mudan, waa maalin u qaas ah taageerayaasha hagaha nafta, oo aan doonaya inaan si niyad ah u dhaho mahadsanidiin. haa, dhammaantiin mahadsanidiin. adiga hadda daawanaya muuqaalkan, mahadsanid. waxaan kaaga mahadcelinayaa taageeridaadii isugu jirtay ku bixinta muuqaaladeena waqtigaaga qaaliga ah, sheergarayntaadii, laygtaadii iyo kommentiyadaadii quruxda badnaa ee isugu jiray mahadcelin iyo dhiirigelin, kuwaasoo ii noqday shidaal aan ku sii socodsiiyo safarkii bulshada aan kula wadaagayay muuqaalada dhisaya qofnimadooda, qaabeynaya habfikirkooda, kala talinayay amuurahooda nolosha, u iftiiminayay waddadooda horumarka, iyo xeelado kala duwan oo nafta looga jaro caadooyinka aan u wanaagsaneen, looguna abuuro caadooyin iyo habdhaqanno ka wanaagsan kuwii hore. intaas iyo in ka badan ayaad garab u noqotay, oo adiga la'aantaada ma suurto gasheen in janalkeena hagaha nafta uu gaaro 10,000 in ka badan. haa, xaqiiqdii ma suurto gasheen adiga la'aantaada. 10,000 in ka badan keliya ma aha nambar, ee waa faamil abuurmay, ku midoobay isku garabsiinta wanaagga, isku dhiirigelinta waddada wanaagsan, dhisidda hanka nafta iyo isxasuusinta waxqabsiga. sidaas darteed ayaan jeclaystay inaan u mahadceliyo qof kasta oo idinka mid ah, oo sabab u ahaa in hagaha nafta janal uu soo gaaro heerka maanta uu taagan yahay, oo ah 10,000 in ka badan oo walaalo ah, istaageerayaal ah, is-anfacayaal ah, is-dhiirigeliyaal ah. intaba waa qalbi wanaagsanaantiina. aniga ahaan ujeedooyinkayga ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaan sabab u noqdo qof qalbi jabay kabsashadiisa, qof duruufuhu daaliyeen rajogelintiisa, kalsooni gelinta qof naftiisa dayriyey, u iftiiminta xogaha nafta lagu bedelo, loogu dhiso shakhsiyad wanaagsan, hadaf loogu dejiyo, iyo barashada habla dhaqanka dadka, iyo wax kastoo aan isleeyahay waa u muhiim safarka nolosha. sidaasi darteed ma ii suurta gasheen idinka la'aantiinna, oo haddii aadan ku soo xirmi lahayn janalka, ma jiri lahayn taageeridan quruxda badan, kommentiyadan dhiirigelinta wada xambaarsan, iyo dhisidda familkan maanta gaaray 10,000 in ka badan. ma aqaano si kale oo aan idinkugu mahadceliyo, laakiin waxaan idin leeyahay sida aan wanaagga iskula jeclaanay, allaha inoo wada jeclaado. sida aan halkan isugu soo xirmanay jannatul firdows alaclaa, allaha isku keen kulmiyo. wanaagga aan isla jecelnahayna allaha naga wada ajirsiiyo. ugu dambeyn, 10,000 in ka badan ma aha nambar oo keliya, balse waxay caddeen u tahay in dunida weli ay baaqi ku yihiin dad qalbiyo wanaagsan, wanaagga taageera, qalbiyada ilaaliya, xumaanta aan u sacabtumin, wanaagga u hiiliya, han sare leh, waxyaabaha wanaagsan ku dhex faafiya bulshada dhexdeeda, sidiina oo kale. waxaan rajaynayaa bilaha iyo sanadada soo socda in badan inaan isugu hambalyeyn doono sii ballaarashada familkan maanta gaaray 10,000 in ka badan insha allah. mar kale waad ku mahadsantihiin daawashadiinna, garab istaaggiinna, taageeridiinna, dhiirigelintiinna, muuqaal faafintiinna, iyo ka qayb qaadasho kasta aad aga qayb qaadataan kor u kaca janalkeena hagaha nafta. allaha idinku xafido meel walba aad dunida uga xiran tihiin janalkan, oo allaha idinla garab galo halganka aad ugu jirtaan xaqiijinta hadafyadiina nolosha. mahadsanidin.